أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي بمهد إسكاله إلهي بمهد الصلاة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. رمضانك وكاسة وقلبي واتقي رمضانك. الله أكبر. إلهي أنت اللي من ولا نقول لما ربي ورحمانه dhibaato waxaa qaba midka aanay soomina dhibaato qaba. hadda alxamdulilaahi toban waa tagtay waxa hore waa 20 beriya harto ayadana 1 iyo 2 iyo 3 iyo waa arkay 19 17 ayadoo leeyahay. marka kan soomina dhib qaba iyo midka guri islaameed ku jira oo ramadaan ugu dhalahaya oo bilaqa degan oo aan ramadaanka xusmeeyeen xaw xusmeeya guri bilaqa degan yahay. horta qof gurub horta nin isbaara dhigtay oo baabuurta ummad jidka maraysa lacag isbaara ka qaadahayo iyo nin guriga bilaqaad degan horta waxa way xishood male xishood. hadda ka hor nasroy walaashay iyo aadan cabdiweli salaama hadda ka hor waxaa dhacday baydhabo ka soo baxna maalin baabuuraan soo raacnay basaan wadanay baydhabaan ka soo baxnay saan u soo soconay meesha la yiraahdo leego agteeda yaa waxaa tiirla isbaaro tiir. marka isbaarada nin baa laamiga dhexbartankiisa fadhiya markaasoo lacagtaas waa ruusaa lacagta keen baabuurka lacag ka qaada qoryaa lagu hayaa baabuurta waa degan waa kaa qaada baay nasro walaashay macaan waa deganay ninkii isbaarada u tiilo meesha fadhiyay yaa gabara aqoonsatay adiga waa la socdaa meeshan taaganahay gabadha baskana la saarantaa markaasay waxay tii waryaa hebel hee warmaad ilaahay ka cabsatid warmaad ilaahay ka baqdid sow adduunka weji kama rabtid maxaa kugu kalifaysan waa gabar way shaqaanaan markaas wuxuu yiri abaayo ma maqleeyo haddaan weji dad ka rabo meeshan ma fadhiisteen haddaan weji dad ka rabo meeshan ma fadhiisteen inaad iga kortag saaxiib iga kortag weji haddaan soo haya ama qof soo haya aan ahay ama aan mustaqbalka dad weji ka leeyahay laamigan intaan fadhiista isbaar ma qaateen ee walaal ilaa fariga iga leeyahay ma garatay. marka taasna waa u soo joogay xaadiran waqti u ahay. alxamdulilah rabbil caalamiin. xabiib maraayiin maanta wuxuu ka degtay meesha la yiraahdo garoowe. shacabka garoowe meel kastay joogaan waxaan leenahay hambalyo ayaan leenahay sida qiimaha leh ee sharafta leh alxamdulilah loo soo dhaweeyey hambalyaan leenahay. ilaahay bay mahad u sugnaatay. caliyare gruubka caliyare ahaa iyo gruubkii xamar joogo reer dhuusi weyne la dhahayo iyo caliyare gruub ayaan rabaa inaan la hadlo. waxaan arkaya caliyaroo dhahaya bahashu daarood bay gaartay qabiil bay gaartay annaguna haddaan hawiye nahay annagaa isdoorahayna caliyarow qabiil iyo qurun abarteed iyo adoogeed idinkaan idinka soo gaaray horta markaa runta kuu sheego adigaana kow ka ah oo aan xishoonin oo xishoodkii kaa dhacay inaad afaare qabiiliste aad tahay oo aad nabad iyo nololna aad qabiil kula joogto afaare qabiiliste aad kula joogto na maanta shacabka horena waa uga caddeeyey haddana waa u caddeeyaha horena ummadda soomaaliyeed waa uga caddeeyey hadda ka hore waa sheegay oo halkaa waa ka sheegay maantana waa ka sheegay caliyarow. fahad yaasiin waxa aad kula dirirsan tahay waa qabiil. walaalkay mahad salaad oo dilkii ikraan dilay
ayuu fara ka haaya way horta waxaad kula dirsan tahay Fahad Yaasiin walaalkay Mahad Salaad oo dilkii mataqaana Ikraan Tahliil iyo mataqaana Aamino iyo injineer Yariisow iyo Bedel iyo wax allaale wixii la dilaayay ayaa walaalkay mataqaana loo haystaa arrintaasna Fahad Yaasiin haysta weeye horta waxaad Fahad Yaasiin aad kula dirsan tahay Fahad Yaasiin kac kuma dhihin kir kuma dhihin kud kuma dhihin taas horta waa taas bal qabso adigay ahayd intaad timaado TV-ga qaranka adiga iyo Maxamed Xasaxaad iyo gudoomiyaha gobolka Madaale adoo kusimihii adigoo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Banaadir arrimaha nabadgelyada adigay ahayd intaad TV-ga soo fariisatay aad tiraahdo haddaan nahay beesha hawiye muqdisho annaga iskale dadka naga dhimahaya annagay noo badan yihiin marka waa in qaybta 4.5 ka la tuuro oo maadaama hawiye culayska uu saaran yahay hawiye yaa ninkii dhahayana adigoo ahaa cali yarow adigoo ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo adoo tulaysid jawaanada toshid uu farmaajo ku ximbaarsaday cali yarow taariikhda anagaa sheegayne asalkaaga adoo kuwa jawaanada tula ah yaa farmaajo ku ximbaarsaday maantana waxaad gaarsiisan tahay heer aad guri aad ku yeelatid Nairobi aad ku yeelatid farmaajo ah gaarsiin cali yarow markii farmaajo madaxweyne ahaa hotel Jazeera 11 nin musharaxiinta ahaa dhibaatada waday waxay ahaayeen hawiye ahaayeen oo halkaas la taagnaa xisho darada la taagnaa hawiye ahaayeen ma garatay qaylada iyo buuqa la taagnaa ha soo baxa farmaajo guriga ha ka soo baxa sharcada ha ka soo baxo odayaal la abaabulay mid niman cayr ah oo shabaab ah allo barigaas madaxtooyada joogi lahaa cali yarow maalintaas cali yarow madaxtooyada haddaan ka shaqay lahaa waxbaa idinku dhici lahaa niman cayrahoo la yaqaano oo naqaano shabaab ah yaa waxay kusoo dhinteen dhulkii shabaabka ay joogeen waa markii laqabahay awdhegliya laqabahay ahayd markaas intay soo qaadeen nimankii cayrmeedkoodii oo shabaabka ahay waxay keeneen madaxtooye keeneen markaasay diyaan ku rabnaaho ciidanka dowladda laga laayay waa niman shabaab ah dadkii hoos ka waday ka juqayhaya caliyow oo dhehaysa meeshaan lacagaa taalee diyadiina qaata adigoo ahay horta laba wajiire ah xaggana la socday berire ma garatay allo maalintaas madaxtooyada joogi lahay xarigoo idinku gudan lahay waa idingaraa intaydi kale baasho xarig idinku gudan lahay weliba because saan idin aqaano dadka idima aqoon laakiin anaa idin aqaano si fiican idin aqaan taana waa kuu sheega caliyow marka caliyow adaa hawiyenimada bilaabay adaa tiri xamar hawiya iskale waad duuban tahay videogaas waa lagaa hayaa odayaashina ayagaa halkaas taagnaayo farmaajo waa mareexaan dhahayay oo hawiye markhaati adigaa ka ah maantana farmaajo waa mareexaanteed weli aada wadaan adaana kow ka ah caliyow odayaasha waxa abaabulaya waa adiga farmaajo iyo Siciid Dani hadday isu tageen siyaasadaa ka dhaxayso talaa ka dhaxayso waa laba nimood daarooda hawiye maalin kasta u shiraa daaroodahaya hawiye maxaad u shirtiin lama arka caliyow hawiye maalin kasta aad halkaas fadhidaan aad mataqaanaa shir iyo buuq iyo qaylo iyo dabaalnimo iyo dhuusa qurun iyo dalabo aad halkaas la fadhidaan ilaaha idinku dhaarsheen bal odayaal daarood inta meel fadhiista shiraayo oo dhahaya xasan sheekha saalax xataa lama arkin odayaal daarood oo xasan wax ka sheegta lama arkin inta meel fadhiisteen odayaal dira lama arkin waa idinka farmaajo madaxweyne ahayn oo magaaladiisii yimid oo xildhibaan ah oo gurigii uu ku dhashay xaafadii uu ku dhashay waa bari yimid
وإذنك حولك زوجس أري عاوز زوجس أري والله تقو يا بار حاكم أري ما يا عون نويبس وحين حد لهي وحاس كدعله حوالهاس كأرسله توقن بدنا قادره واحد يا لك عن نوكل أري لك عن نوكل أري لك بحثة أري لك بحثة والما جو لقتك الله أعلم يا أري لقتك أو وحكا حدنا أو وحكا قادرنا يهو أري متكان مقا أركو لا بتاعي حرونتا يا ولا حان حد لهاي امسي اج انت تتقي امسي اج انا عيالك اقونتا كلا بحيا ممكن كلا بحيل ما فرماجي صوتك اسا صور وقال اسا انا امسي اج دعايه اللي اركا هو حكرم بها توغني بس وتوغني واحد كلا ابي راتب والله وبالله او تالله واحد كلا حان لو كان فرماجو حواي aan waxadnay xaan loo keen ko xukunka farmaajada waxa lagu diidaa waxa waaye farmaajo igarkan emailay ari midkan emailay ari gabartan emailay haya adeer gabarta aan ku meelay wiilka aan ku meelay xay barteero yaqaanan xay barteen ma hay emailay waxay barteen ma qaan emailay hata aan ku meelay adeer kuma diidanay ilmuhu maxay barteen shahaado noocay wataan haya midkan الفرماجو حيت يا وحوال قرين مدح يقول اي مدح عنكو قال شيء يقال كانوا وحما بري هرت وحما بري حو يقال انت اسواي انت يكون ديديه اودياش هوي waxay rabaan mid isbaare wadada u tiirlay inay yiraahdaan agaasimo loo dhig mid dadka dhacaay ay gurub laga degan ay rabaan inay kaliya wasiir ku xigeen ka dhigaan waxay rabaan bangiga iyo meel dhacdhiciye mid tuug dhalaaho waligiis waxa jir in bangiga la geeyo rabaan فرماجو حاسب عقله ولكن محبة الشهادة معوتها أنا أنكون مريء الشيخ وحوته شهادة الشيخ وأنت أصبح وقلنا على محمد عبد الله فرماجو ما هذا دنبلي كم قلي قولنا كم اللعب حوالي كم حدين دنا كم قلي ولا لها يو هدي دد الدليل الحسابة دد الدليل هدي الحسابة سجاشر يكودي دلكي بالله إلا لابد يكون يلا باتر يسدح يوسع دلكم يا انت على حسابه ددكي مساكين هاي الحسوقي ددكي غريوه دل الرعي ددكي لوم اويان لو بخيي ددكي انت سيبت لسوق حرق سكولك محمود احمد علي سكولك انت اللي اروشي كارن كياله صنعة كيال واتقان قف كسر تقان محمود أحمد علي يا أنت ضد وأروشي أفرتك وأنا لقيت استاجي الشيك أسأل غفري يا الغفري لا تكاسو تريد كم جرال بيا لا تكدين لم حسابها يميا لا حساب يا حسوقه وقيس فرماج ورحاو حسوق اللي هيله تاس ما أركان بيا أو سي بيانو ضد مساكين ولا سوء أروشي جراش عثمان عاطن تل السوق يعني عثمان عاطن جراش كيس السوق يعني أو سجاش قفود جاري يا باس تبغى لغتي حسوق مهل مية حسوق يا مهل بون دير جراش كيالا dadka masaakiinta jireerta iyo dadka masaakiinta wuxuu u ahay meel lagu xareysto oo dhiigga looga miirto ay ahayd markaas mid maskiin oo areemay tacbaan la ah yaa inta faleebal suutaa dhiig looga miira asaalimad dhaawac lagu shubar waa dhiiggaasi ogaada waa dhiig qasaba xoog oo isbaara waaye inta lacag la isbaaristay guriyada la isbaaristay waxa leeyahay ninkan taataabo هاي أريا وبوريه حق نقول مركي هبل لا عمل لي جيسان كشبهنا ليجي براسواي براسواي ما يقانا يجي صامر أريا ليجي صامر واي يا مركا وضرن حصوص الحين ها هبل واد دمبيره جابتين يوم دري أيجا قبل اسكت دري إكران تاني أيجا دري من أيجا دري بدل أيجا دلو ولي بكفارين بدل أنتي دليل ولي بكفارين إيه ده مجرم كي أوضاعي بدل ما أنت عند اللي
haddaan nahay hawiye action group soo waxaad garateen maaha ayagaa ku faana ninka la leeyahay injineer yulusowna ayagaa dilay waxayna u dileen nabadda uu muqdisho ka waday koow ilaahay kuuma sabadiiday guryaha islaameed oo inta loo dacwoodo oo dadka ka saaraya labo dhulkii hantidii mataqaana dowladdu ay lahayd dadkii dhistay oo ka jibihay cagafta kale ka jibihay oo ka bilaabay goroonkii naadiga jeeyay ee siinay ku yiri guriga dabaqa laga dhisay iyo cagaf gasho dusha intaas markuu qabtay ninka le injineer yuriiso waxay dhaheen kan ma raayo naga qabta kan ma raayo naga qabta yaa dhulkii laga saaro haya guriyihii dowladdu naga bixiyo haya naga saara saasa loo qarxiyay injineer yuriiso loo qarxiyay saasa loo dilay anaga ogsoon ilaahayna waa ogsoon yahay waana bil ramadaan ma garatay kuwii dilana waa joogaan mahad salaad fiqi alcadaala xasan sheekh laftirkiisa yaa ku jiray intaasu waa intaas tan kale odayaasha hawiye xamar joogaan sheegaa marka ilma adeerayaalow haddaad dowladnimadii haddii aad garan weydeen micnaha dowladnimadii ninkii xasan sheekh ahaayee madaxweynaha idiin ahaana meel kasta ku soo fashilmay adduunyada ku fashilmay israa'iil waa tegey heshiisoo la galay yuhuud heshiisoo la galay waxaa taas u daliil ah in yuhuudda lala galay heshiis lala galay hawadeena soomaaliya marka aad fiirisid barnaamijkan la yidhaahdo flight rider 24 la yidhaahdo beejkaas gala waxaad arkaysaa diyaarado israa'iil ay leeyihiin oo dhowr shaqado yuhuudda ay leeyihiin oo hawadeena kor maraya israa'iil okay anaga yuhuudda heshiis ma gelina maxaa hawadeena kor marsiiyey maxaa anaga hawadeena diyaaradaha yuhuudda kor marsiiyey ya waxay dilin u tahay in loo fasaxay xasan sheekhna uu la galay heshiis yuhuuddu la galay oo Uganda la galay waa ninkii Uganda u tagay yiri baahya asawirada baahida kuwaas anigu xoolama haayee xoogaa ugaali ma ku siiya codkii oo furan oo mikrofon ku furay lacagna daabteen ordaha qatar iyo turkiga aad u weeraray laakiin anigu xoogaa yar soo ugaaliya wada sikra ilaahay ku dhaashay aab marka hawiyo haddaad meel kasta ku ceebowdeen xasha ku ceeboobay imaaraadka u bood qatar u bood xagga u bood turkiga u bood masar u bood etoobiya u soo bood uganda u sii bood israa'iil u sii bood meel uusan cagta gelin aysan jirin waa bil ramadaana waa soo marahay wax badan aan sheegi lahay wax badan ayaan sheegi lahay laakiin xasan dhib ku filan asaa qaba maanta kii gara lahaa iyo kaan gara lahaynba dhibaato ku filan xasan dhibaato ilaa mustaqbalkiisa dambe ku filan xasan waa qabyaa maanta waana nafsigii oo galay waaye maanta nafsigii oo galay waaye madaxweyne inta wadan aado la soo tuma weligiin ma arteen la soo tuma babdhe gacan laga jabsho bab lug laga soo jabsho bab dhabar laga soo jabsho bab daanka lagu dhufto bab isha soo bararto bab iyo wax kaloo qarsoon oo ilaahay og yahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ya marka la ilaha illa allah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسب مركا aad ku qarihaysiin dhibaatada in haysta ku qarihaysiin marka ay madaxweynaha la soo tumaaya oo la soo garaacay maalin kasta oo nin kasta u yar wadaag kale iimo haye way kara ay walaalkay way kara ay reeb staff ka reeb meeshan gal mab arabo hidin arabo waxaarka ku sameeyo eebo waa ku saxiixa waxaarka sheeg waa ku saxiixa eebo waa ku saxiixa waxaas ma adweytiin nimayo waa ninkii aad arkayseen qaahiro markuu tagay waa ninkii aad arkayseen qaahiro leeyeen saas loo fiirshay xariir saacadaas gafur awootaan
saacadaas yuhuudda kusoo dhibtay saacadda israa'iil usoo xigtay waa saacad waxay ahayd oo mataqaanaa asirashna yuhuudda usoo xigtay saacadaas saas intuu u fiirshay madaxweynaha masaajidiisa yaa saacadaas fur joog ha iisoo dhawaan iska fur saacadda markaasuu gabadhiyaa intay dhugdhug soo tiro iska furo gabadhigaa ugu dhiibo ceebtaas arka ilaaha idinku dhaarshe ceebtaas arka ilaaha idinku dhaarshe weliba waxaa lagu qabtay meel oy kaamarooyinkii iyo mataqaanaa dadkii wada joogaan oo ka noqosho lahayn waa sida loo cabeeyo istaag iga joogaan xagga iga joog karaa saacadda furale waa laga warqabaa saacadda waxay tahay ogyahay waqtigii loo sidoonka masaalada sheegaya usii sheegaya madaxweyne odhahay ninkan saacadda wata baraayo waayo yuhuudda aada marka ilaaha idinku dhaashay nin war hawiyow nin iska dhaaf wax kale waxaan haynaa madaxweyne la kilaystaan haynaa madaxweyne la ijaarahayo inta qalab sidoon lagu xirto waxaa leeyahay wadan heblow aad inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun adduunyada intaad soo marteen oo aad dhulkii dadka dhacdeen oo guryo daarood dhacdeen oo aad qabiil wax kasta ka dhigteen ood beera dhacdeen oo oonkii baddaas ilaahay wuxuu ogyahay juud wamaajuudka badda mataqaana cabaaya maanta haddii hawiye lagu furo caloosha hawiye aad soo haraysa baddaas waa fuuqsahaya saad u socoteen waxaa laidin gaarsiiyey in madaxweynihiinni uu noqdo nin kiraysan madaxweyne la ijaaraha telefoon isdira halow warheedha ii warramaa boqorka kuweyd miya war waa fiicanahaye niyahow waxaan rabaa baxrayn inaan sir ka helo baxrayn maa sir ka rabtaa waa lagu yaqaanaa haye madaxweynaha soomaaliya wace haye ninkaasaa aad qalab u dhiibe ama saacadaad u xire ama mataqaanaa muxuu ahay asaad farsameehe haye subaxa dambe laba bil kadib uu boqosho ku aadaa baxrayn qalabkani meesha asaa soo dhigaayo waayahay meeqow qaadaha ma badna raqiis waaye $1 milyan hadii la siiyo waa qaadaha ninkaas anaa ku og waa hunguri raadis waaye masaasa niyo madaxweynaha marka soomaaliya waxaa u kaan cashir halow warxada sheekh haye imow martiqaada ku hay imow haye waa ku imaha nah diyaarada la furay noh waa dabaal iska socdo hal aqliya dhibic aqliya ma laha dabaal caadiya waxaasaan la xukuma nimayahow marka odayaashii hawiye ee hoteelada ku shiraayo waxaa waaye jabkaasaa ku dhacay annagay nagu qaraarayaan marka waa qaraar farmaajo yimid xawlaga soo jeesay farmaajo war halkaan dambaalka midkaan dambaalka ma cisatiin oo korkiisa ijaara xataa gacanta waa ijaaran tahay lugta waa ijaaran tahay gacanta kale waa ijaaran tahay jaakada oo wata inta jeebkan imaado u jaaya jeebka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamadan rasuulullah ninkaas wada ijaaran asana waa ijaar korkii nin adduunka waa laga yaqaanaa madaxweynaha ijaarkaa dhaa waa ijaariye meeshil raba loo diraa waa ijaar wallaahi billahi taala waxaa idinkaga marqaatiya safarkii oo ku tegaya qaahiro ku tegaya istaag joog soo istaaga markaasuu saacadda iska fur saacad inta furo u dhiibay gabadha u dhiibay ilaahay ku dhaashay adduunyada ma ka dhacday madaxweyne wafdi oo inta meel taga leeyahay isoo dhowaan iska fur waxaas leeyahay ka warrama ilaahay ku dhaashay ijaar u ahay waa loo soo dhiibay saacaddan waxaa leeyahay qaad siisi ula tag meel soo dhig anigu been ka sheegay mana xaan sheekh mana labeen bil ramadaan waayo ma garateen waa bal gacantaas la qaraayo la sii qaraayo la soo qaraayo bal ka warrama yaa gacantaas la qaraayo maxaa ku dhacay asoo gacan duuban oo saas u duuban oo midigta u duubantaa arnay haddana waxaa arnay asoo bidix u duubantaa arnay haddeertaana turkiga markuu aaday turkiga inta gacanta dhamay wixii ka furay oo qaliin ku sabeeya wixii la gashaday qalabkii la gashtay oo ka saara turkiga hadda waa kaas markuu turkiga imaa markaas gacanta waa xiray aye marka ilaaha idinku dhaashay
إلهي كل أشياء كورهم الله كل أشياء بل قعنت أس ما أنت الإسبتال السيجيها كورهم يا جيب وحوالك الشيء قلب وحوالك الشيء يجيب بقى رسالة الشيء بلا ما يشوف تجايو يمركوا السوق هذه هي وقفش أنا واقرويله مركا وحال ليه هاي odayaasha aan hawiye marka dowladnimada wada waayeen ninkoodan nin saas loo soo daama garaaca waaye oo meeshu tagaba gafurka lagu soo dhufaa soo daan baran la keenayo soo mataqaana il baran la keenayo waaye dowladnimadii fashil ka dhigeen wadamadii dariska ahaaya mataqaana saas ugu dhaaraha Itoobiya ugu dhaaraha waa ogsoontihiin marka hadii la fashilmay annaka ma lagu qaraara marka qaraarka annaka miya yaa مايا أنا قرار مرة بلو أنا قرار مرة بلو المعدي ريالو هدا إنسان إنك إسكوية يا don't cry for me why أنا هنقول أوينا أنا هنقول أوينا المعدي ريال بيني ناس إسكوية على الحمو والله وبالله وتالله ما أنت على الحمو إيه أروك iyo waxaan la sheegi karno caloosha ka buuxda maanta waa qaban wallahi iga qaba maanta wallahi billaah tallah annaga alxamdulillah saasan iska sheekayna aan si qoslayna asaa faraxsanahay cid fara naga haysa male qof fara naga haysa male laakiin idinku maca odagiina weena fara naga haya inna lillahi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh afur wanaagsan أفريقيا نوصلوا أنا هذا وقت هيرو سكابرا سكاية أدير تاران بركان ها لا إله إلا الله محمد رسول الله لا صوي أنا أدير تايي سدح قرافو يقول لي سدي oo kuleysadii aan mataqaanaa suxurta ku shubahay iyo 3 garaafo dhaqidooda lafta ay keentay dhaqitaanku iyo tarmuuski qaxwada intaas lafta ay keentay in adeeray malooli tarmuuski qaxwada koobki qaxwada 3 garaafo midka caanaha geel aan ku shubto iyo midka biyaha caadiga sanbeeshka aan ku shubto iyo midka barafka aan ku kaydso أو كوكاسو أنت أصلا لفت كنت لفت لق ساعتك ولا قال أظن لفتك أبيع رمضان أي تاع لق وأنت اسكاب لا إله إلا الله محمد رسول الله ندو له قب بسراهم لها أنا كفر في السنة الإيديت هالشيء ولو استافى وردين لقيها بحال لقيها عر ملافت فيها لقوها يا الله كريم والوين السلامة قال كذا الله قال شقة إيطالي سد حس قرافان لعي تلموس كاسان لعي هل كاس يلا ويصوف في رهاين مركز على كواس كل حكوب مركز في السبب والنحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.